dadweynaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay dooda qaran ee ay ku baaqeen xisbiyada mucaaradka ah ee Soomaaliland waxaana ka mid ahaa hadaladoodii arkaa inay tahay mid aan sharciga waafaqsanayn waxaan u arkaa fikradeyda inay yihiin qaran dumis waayo dastuur buu dalku leeyahay shirka qarankana waxa qaban kara madaxweynaha iyo dawladda loo igmaday dalku waa quraarad horumar baa la gaadhay waxqabad baa la gaadhay anigu waxaan u arkaa waxa weeyay qaran burburin iyo gacan shisheeyo ku jirta dalka u arkaa inay tahay khalad waayo sababta ay khalad ku tahay waxa weeye dalkeenu waa ammaan dood qaran waxa loogu talagalay dalalka ay ka jirto foodadu ay ka dhacayso saddexda uu leeyahay sharciga uu leeyahay koob yahay madaxweynaha baarlamaanka guultida waa inaan raadka la raacaa laakiin qasow hayna qasin ra'yiga xukuumigan anigu raacsanahay waxaan raacsanahay xukuumadda iminka arrimaha wada sida ay wax u wado ayaan raacsanahay waayo wixii uu ballan qaaday xisbiga kulmiye uu wadaa intii badnayd qabay inta dambana uu qaban doonaa dee hanaga qalin daarina ma akoon kale wax la idinku soo shubado idinka la idinka maamulaya dood qaran uma baahan wadda koriyo cid buuqda toonna waxa aan u malaynayaa inay la mid tahay kelmadda findhici la yiraahdo dood qaran waayo maanta maba taalo waqti la yiraahdo dood qaran baa la qabanayaa waa findhicilku ma wacan yahay mise ma wacna iyo xuskiisaaba xun waxaanu leenahay qolyaha dooda qaran wada dee ilbaa bariiqaysay Soomaaliland ishaa ka xidhina dooda qaran runtii waxaad moodaa inaanay xilligan joogo munaasib Soomaaliland ku ahayn waxaan ugu raacsanahay waxay keeni kartaa tafaraaruq sidii berigii dhaweyd xisbiyadii la furay oo kale ayay keeni kartaa iska horkeen iyo bulshada oo isku nacda waxaan u arkaa inuu foodo kordhinayo inuu kordhinayo dalka waxba ku tarayn loo daayo cidii arrinkaas kale qof walba haddii la yidhaahdo war laga qaado la yidhaahdo war maxay tahay ayaa loo taakelimaya dadka la dhex maro hagaagi mayso xagga dawladda iyo dadka u xilsaaran in loo daayaayo haddaan wixii qalloconayn oo wuxuu ay baysanayn oo ay ka midaysan yihiin wanaag ka midaysan wanaaga loo daaya anu saasaan ku raacsana la qabto waa muhiim wixii dalka ku soo socday wixii jiraba in laga wada hadlo asxaabta mucaaradka iyo xukuumadda labadaba ka wada hadlaan Soomaaliland oo dhan qusaysa qaranka wixii uu qabsoomay iyo wixii ka qabiyaa iyo wixii mujtamacu ay tabanayaan waa laga wada hadlayaa xukuumaddu ka ooydo sida fiinta wixii dadweynuhu codsigooda ma aha in macnaa la tashto oo dadku ay tashadaan oo la soo yimaado waa arrin farala waana arrin sunna oo nabigu jideeyay ilaahayna ay quraan ku soo dajiyay ninkii diida ee yiraahdo la tashanin waxa weeyaan nin ilaahay ka fogaaday deeweeyo oo islaam ahayn marka in mar walba tashada madaxweynaha ku wacan tahay mar walba inuu madaxweynaha ogaado madaxweynaha ku wacan tahay arrintaas suurbeelad ma aha suurbeelad cidina kuma dhawaaqin xisbiye qaran baa ku dhawaaqay in la wada tashado wada tashi qaran baa lagu dhawaaqay in la tashado ninkii diidanaa dee meeshu ku socday isaga dood qaran horta waxa weeye dood qaran waxa weeye waa aynu wada tashanana wax dhib ah oo ku jirta oo anigu aanu arkaa ma jirto mucaaradka dooda qaran ay ku baaqeen la qabtaan jecelahay haddaan bulshada reer barcanahay anu arkaa dooda qaran ay ku baaqeen xusbiyada qaranku mucaaradku inay tahay mid muqaddisa tii uu ku waxaan leeyahay maxamed axmed siiraay rikoorkiisii dabadib u raaco waxaan aad iyo aad u taageersanahay dood qaran runtii kulli waxaanu soo galnay doorashooyin xurgufa dhex martay dadka kulli haddii dood qaran la qabtana macnaheedu ma haddaynu cid ku duulnay waa inuu heshiino horta marka ugu horeysa qaran marka la leeyahay waa in qarankii oo dhan ka soo qayb galaa ee maaha in ay xusbiga ka soo qayb galaan Soomaaliland waxay maanta halka ku gaadhay qarannimo marka maanta in dood qaran la is hortaago oo dood qaran la is hortaago la yiraahdo ma la qabanayo anigu waxaan u arkaa shakhsi ahaan inay Soomaaliland ay ku tahay magaranaysaa meel ka dhac labada aragtiyood dhexdooda in waafaqsan in la qabto shirka dood qaran iyo in ka soo horjeeda xisbiyada mucaaradka ah oo ku baaqaya in la qabto iyo xukuumadda oo iyaduna si cad u diidan xaaladaha iyo aragtiyada kala duwan ayuu yahay xaalka Soomaaliland ilaa iyo hadda Cabdimaalik Musaacdoon Samsat Pro